caawa waxaan u nimid masjidka inaan iswaraysano in mataqaanaa fijigsanaan badan baa lagu jiraa oo xilli adag ayaan soo marnay. waad ogeydeen in nala gelgelay magaalada hadday nagu yimaadeen federaalka ilaa haddana way kacsan yihiin oo meel walba ayay marayaan. marka taasna waxaa raacsan arrinta ku saabsan dhacdada ka dhacday masjidka ku yaala San Diego. laakiin arrintaas waxa waaye arrin weyn oo xanuun badan oo ku soo aaday ummadda muslimiinta ah oo dad khaas ah ay raadsanayaan inay dib gaarsiiyaan. community-ga waana laka yaqaanaa, maraykanka dhan baana laka yaqaanaa meesha ugu badan inaan nahay dad Soomaali ah, muslim ah, madow ah, immigrant ah oo mar walba farta nagu fiiqo madaxweynaha u horeeya. marka caawa waxaan u nimid inaan taxadarno annaguna as a community aan isku noqono wixii annaga elected official mas-uuliyaddeeda tahana inaan qaadano. waxyaalaha aan sheekha kala hadlay waxay ahayd nabadgelyada magaalada sida u sugnaa, especially masaajidayaasha dhowrkan beriga soo socda, in booliis aan meelaha keenno maalmaha xilliyada timeka loo baahan yahay oo dhan aan iska wareysano. caawa waxaa ila socday oo ii yimid wiil ila shaqeeya oo dha Davidkaas wuxuu ahaa wiilkii meeshii waagii qolyihii imaanayay oo xaafadda dhan ay gabagabeynayeen dadkii oranjiga qabay oo taagnaa oo masaajidka ilaalinaya habeenkii maalinba. dadkaas ayuu la shaqeeyaa. dadkaasna ayuu mataqaanay rabaa inaad ogaatay xilligaa jeceshiin inay yimaadaan, xilligaa jeceshiin inay isbedelaan, shiftiga ay galaan. waxaana ku soo gabagabeynayaa dadkaas aad bay noogu taagan yihiin. waa dad dariskeenna ah, waa dad mataqaanaa wax wanaagsan nala raba. ayagana in lala shaqeeyo oo idinku keligiin ayaga keligood inay taagnaadaan ma ahana ayagina garab la siiyo, ummaddana ismaamusho, la fijigsanaado wixii ah suspicion ay dhahaan ama waxyaalo shaki kaa gelinaya ama gaari meel iskaga baarkin garaysan oo qolyo caddaana ku jiraan ama waxyaalo ma aragtay isdhehaysa waxaan normal xaafadda ma aha, masaajidka ma aha, inaad right away authority-ga maamulka way la socodsiisay, booliiskana wacdid. marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan u gudbinayaa walaalka maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa masaajidka Mr. Shaafici asmaada noo fidiseen inaan ka wada hadalno arrimaha maaragtay hadda socdo. Vice President Council Vice President Jamal walaalkan siduu noo sheegay marxalad adag baa lagu jiraa. tii hore laga soo gudbay hadda waxaa socdaa islaam naceeb, Soomaali naceeb. labada waa kala duwan yihiin waana isxambaarsan yihiin. xaqiiqdii dhibaatada hadda dhacdada ka dhacday San Diego waa arrin aan mar walba ma aragtay aan ka fikiraynin si looga hortagi lahaa, khaasatan xaafadan ma aragtay dhibaatada oo lagu hayo oo mar walba dad oo xagjir ah oo cusuriyiin ah oo xaafadan ku dul wareeganayo. xilliyadii adkeedaan soo marnay ilaa hadda ma aragtay qaar oo weli ka degin oo qaar ka mid oo la wareegayo camera iyo xaalo badan la wareegayo, danaynayo in sumcaddeena, sharafteena, karaamadeenna iyo jiritaankeena ma aragtay wax loo dhimo. baa dhibaatadaasayta ma aragtay sii xoojinaysa. dhibkaas ilaa haddeertan waxaan la socodsiinay xarun loo yaqaano Fusion Center oo gobolka Minnesota oo taxadarka dheeraadka isku xirka ah xagga amniga ee gobolka oo dhanba. in maaragtay arrintii ka dhacday San Diego maadaama ciidda ay soo dhowdahay oo xaafadana si qaas ahaanba banaankaas aan ku tukan doono, markaas waxaa loo baahan yahay ciidamo gaar ah oo si guud ahaanba inaan maaragtay loo diyaariyo maalinta ciidda insha Allah. goobahan masaajidadana waa meelaha maaragtay danaynayaan inay dhibaateeyaan, waa taas waa la ogyahay. waxay noqonaysaa xagga nabadgelyada aan sugayna wixii ka bilaabata berito maba hanba jimcada in maaragtay qof walba uu ogaado marxaladda marayso.
inaan masaajidka samaysano nidaam adag oo ma aragtay ka hortagaasita sababta dadki waxay u baahan yihiin wixii dhib markuu dhacayo inuu og yahay tilaabooyinka la qaadayo waxaan jeclaan lahaa runtii tababar gaar ah qof walba oo maaragtay qayb ka soo qaadanaya salaada haddii dhibaato dhacdo bannaanka ay ka dhacdo wixii ficilka la samayn lahaa hadduu qof maaragtay soo gudbana wixii ficilka la samayn lahaa sababtoo haddii laisdiyaarinin waxaa buuq badan baa la kulmaysaa alxamdulilah waxaa waayey ma aysan noqonin siday filanayeen labadii dhalinyaro oo dhibaatada gaarsiiyey inkastoo maaragtay ilaahay u naxariistay 3 qof ku geeriyooday San Diego oo muujiyey taxadar dheeraad anagu waxaa malaynaysaa inaan isdhiganay markii loo baahan yahay taxadarka oo masaajidada iyo goobaheena waxaan rajaynayaa insha allah in si tartiib ah qof walba uu garanayo tilaabooyinka la qaadayo haddii dhibaato noogu imaado waxaan haysanaa dad oo takhasus ku leh nidaamkaasayta oo imaan karo xaruntaan oran karo kow meeshaanayta bal ka fikira ilinkan yaa laga soo gelin ilinkan ha laga baxo waxaasoo dhan waxaan rajaynayaa insha allah anigoo ka codsanaya gobolka ciidamada qaaska u ah ka hortagga dhibaatooyinkan iyo siriga maaragtay inaan iskaashano ay noo imaadaan masaajidka soo dulmaraan hadhowtina na siiyaan talooyinkaas waxaa ka mid ah sidii maaragtay lagu ogaan karo bannaankii wixii ka socdo oo taxadarka si degdeg maaragtay looga hortagi karo qof walba markuu soo galayo ilbaabkan inuu og yahay qofka ka dambeeya sababtaa qofka ilbaabka hadhowtuu kula qabsan kara laakiin inaad ka warhaysid qofka ilinka ka soo galayo qofkan wuxuu u socdaa khaasatan haddii uu qofka maaragtay shaki uu kaa soo galo qof kasta maaragtay ilbaab ka soo galaya inaad iska aamintid maaha ilaahay imaan buuna siiyey waan ognahay ilaahay baa taxadar maaragtay taladiisaan saaranay sababtaa waxaan ka baqayaa hadhowtii wixii dhacdada inay sii fogaato taasaytan waa qodob midda ugu muhiimsan oo haddaan u baahannahay waxaa weeye berita markii laga baxo jimcadii dhalinyaradu hadda tilmaamay oo gurmad ahaan khaasatan oo xilligii adkaan soo marnay oo aan iskaashanayno si guud ahaanba bannaanka ay ku wareegaan oo lasii bilaabo howshaas ay jimcada berita waa anaga inaan maaragtay ugu talagalnaa laakiin maalinta jimcada iyo maalinta iidda iyo wixii ku xigoo dhanba inaan samaysano nidaam oo isku xiran oo maaragtay si gaar ahaan ba anaga inaan isxil qaadno wixii dowladda aan ka heli karna aan ka helno wixii anaga aan maaragtay isxil qaadi karna aan isxil qaadno ha sugin qof kale oo dibadda ka imaaday inuu nabadgelyada masaajidka sugayo qof walba oo maaragtay oo maanta amniga ka tirsan oo soomaaliyeed oo boliis ah waxaan ka codsanayaa jamaal inaan tiimkaas la xiriirno aan ka codsano oo chiefkana u ogolaado maalmahan hadda oo dhibaatada jirto oo qalqalku jiro in ciidamadaasay ka mid noqdaan ciidamada oo maaragtay guud ahaanba qayb ka noqon doono dadka masaajidka ku tukanayo oo masaajidka ilaalinteeda ay qayb ka noqdaan maadaama dad walaalaheena yihiin oo lasoo tababaray iyo dad badan oo tababaran baa jira oo xaqiiqdan u baahanna iyaga naftooda inay isxil qaadaan geesaha meelaha laga soo galayo iyo wixii hadhowtay taxadar dheeraadka ah inay noo faa'iideeyaan qof walba oo ishubo oo og dad badan baan garanaynaa oo security meelo badan ka shaqeeya iyagana inay maaragtay qayb ka noqdaan oo guddi yar oo la sameeyo oo tiim laisku hubo la diyaarsado kamaal baan u dhiibi doonaa laakiin horta muhiimadda waxa weeye waa amnigaas baahiyaha markaan fiirino jimcadoo kale waa u baahannahay ciidda oo kale waa u baahannahay jimco kasta ciidda waxaa la bilaabayaa 7 adigu 8 subaxnimo in mataqaanaa waa tii lasoo dheerayn jiray oo mataqaanaa wax lama socon ciidan marka waxaan u baahannahay in mataqaanaa naloo sameeyo in earlyba ay yimaadaan jimcadoo kale in iyagana saasoo kale ay noo yimaadaan su-aalaha kale oo ka guuxaya waxa weeye dadka kolley arrimaha caafimaadka waa ay jiraan walaalaha horta xildhibaanada annaga u yeernay maamulka masaajidka dalbay waxaanu u dalabnay inaynu aan iswaraysanno xagee wax maraya qof walba waa og yahay cabsi baa iska jirta laakiin haddana maca daalika waxaa la yaab leh qofku inuusan warna ku siinin markaa u yeedhid ciddii aad wax ku tuhumaysana in mataqaana bannaanka lagaaga cararay waa dhibaato kale marka
walaalaha waan soo dhaweynaynaa wixii su-aalo qaba iyagoo kooban mikrofonkana loo dhiibi doonaa waayo mataqaanaa insha allah nagu weydiin doonaa shiikhu wuxuu ka dhawaajiyey waxa waaye nabadgelyada markii ku saabsan booliiska oo kaleeto in codsigaas marka hore codsigaas waana qaabilnay waana keeni doonaa booliis maalinta jimcada wixii detailska ahaana waxaan kala hadlaya imaamka oo og xilliga u baahan tahay xilligaasaan u baahannahay joogo booliiskaasna dhalinyarada soomaalida ayuu noqon doonaa ayagoo badan baan keeni doonaa sidii waagii ninkii rabay meeshan inuu yimaado oo dhibka ka suujiyo aan uga taxadarnay taas waa maalin waa dhammaynaynaa chief of booliiska iyo dhalinyarada soomaalida awgeed waa la wadaagay inspectorka halkan stationka xukumana wuu la socdaa maanta xataa way soo marayeen laakiin iska jawalka bas inaan siino waaye jamcadana sidoo kaleeto ciidana sidoo kaleeto ayaan siinaynaa waxaa marka iigu muhiimsan aniga masjidku waa badan yihiin masaabiyaasha mas-uul badan ayaa naga saaran mas-uul wuxuu ku yaala magaalada minneapolis ayaga laftirkoodana inaan maamulkan kala hadalna waaye xilliga booliisku baahan yihiin xilliga mataqaanaa ay u baahan yihiin booliiska aan dii karno waxaa ku yaala 22 masjid magaalada minneapolis markaan ogaa marka waxaa maxamuud tiisi baan ku celinaya oo aad u muhiim representative maxamuud oo yiri maamulka iyo dadka ku tukada ayaa nabadda shaadka looga baahan yahay hada mashaadka markaan soo galay dadka u dambeeyaan ahaa qof banaanka ma taagnayn laba qof in la istaajiyo dad inay wareegaan ka warhayaan in mataqaanaa xoogaa taxadarkaas waa muhiim waa helaynaa resourciga oo banaanka noogu imaanayo dhalinyaradan ajnabiga ay cad oo xaafadan dhan maaragta yalow xirtaan wareega waa helaynaa booliiska waa helaynaa laakiin maamulna waxaan uga baahannahay dhammaan ummadda soomaalida oo halkan degan marka intaas aan ku daraya bas waa barnaamijka masaajidka marka caawa intaasaan kusoo koobaynaa waa u baahannahay ciidda iyo jimcada inaa naga waraysan insha allahu tacaala saaldhay sandhidan maadaama ciyaalkii waxay joogaan insha allah salaamu waa mahadsantihiin waqtigaana soo siiseen جزاكم الله خيرا نوعي ماذا نقبل هاي ان شاء الله حب ربوت بدن بان نكرم ان شاء الله جمعين كرمين صلاه الله